ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. marka hore waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo fududeeyay kulankeena maanta iskuuna keenay goob kamid ah goobaha qarankeenu oo runtii ku faano Hotel Ambassador oo aynu ku qabanayno shirkii toddobaad GRES-ka iyo warbiximaha iyo aan ku report gareyn doono wixii u qabsoomay wasaaradda waxbarashada iyo kaalmeynta hay'adaha adduunyadu waxay bixiyeen iyo wixii ka soo baxay iyo furitaanka mashruuca loo yaqaano GPE-ga Global Partnership for Education oo kiisii saddexaad maanta inoo yimiday waxaan sidaa awgeed marka ugu horeysa soo dhaweynayaa walaalkay Ahmed Maxamed Torno oo runtii ahaa wasiirkii ugu horreeyay waxbarashada dalkana wax badan ka qabtay walaalkay Ahmed Qaran wasiirka isgaarsiinta runtii aan oran karo waa saaxiib darbi aan soo wada shaqeynay waxna soo wada galnay isku jaamacad soo galaas banayn wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada aabaha tacliinta sare Somaliland Professor Suleymaan Axmed Guuleed oo runtii xaq u leh inuu ku magacaawno aabaha tacliinta sare Somaliland oo runtii dadaal dheeraad ku bixiyay noloshiisa oo dhanba sidoo jiilasha u soo saar lahaa aan ka mid ahay kuwa jaamacadda Camuud aan wax ka bartay ubadkayga wax ka bartay macallin baan ka noqday boardka jaamacadda ku biiro maamulka saraan noqday runtii wax Ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan agaasimaha guud jaamacadaha maayarka waxaan u soo jeesanayaa xagga dolariska mashruuca GPE-ga iyo Morton aad baan u soo dhaweynayaa FCDO oo runtii aan oran karayo UK office-ku waa kan noogu qiimaha badan ee runtii na garab joogsada mar kastaba waxaan soo dhaweynayaa Save the Children oo runtii uu maanta wax weyn la qabatay gaar ahaan mashruuca maanta EU-da ay nasiisay ee walaalkeen Sabuul la oran karayo wuxuu ku bixiyay dadaalka ugu badan ee walaalnimo saaxiibtinimo si gaar ah walaalnimo ugu mahadnaqayaa Sabuul sidoo oo kale waxaan soo dhaweynayaa UNICEF iyo hay'adaha la socda Alight iyo mataqaana kuwa kale farxa badan ee la soo xisaabin kareynin Africa Educational Trust baa joogta waxay jooga hay'adihii islaamiga ahaa oo noo dhisay iskuulo fara badan runtii mahadnaqa inta la eg kama geysan karayo waxaan rabaa inaan si gaar ah u salaamo jaamacadaha dalka oo ay joogaan jaamacadaha ugu tayada badnaa ugu qiimaha badnaa walaalayaal waxaan rabaa inaan xaqiijiyo dalka markaynu dib u dhisanay waxa inoo qabsoomay wax weyn oo la qarin karin maanta marka aynu leenahay waxba inoo qabsoomay waxa weeyaan waxaan haynaa gacanta ku haynaa 2550 iskuul baan gacanta ku haynaa oo kala duwan oo leh farbarashadii iyo KG-yadii oo leh malcaamadii quraanka dugsiyadii hoose dhexe sare jaamacadaha macaahidda islaamiga iskuulada farsamada gacanta iskuulada ABE-yada iyo loo dejiyo dadka waaweyn waxbarashada dadka waaweyn kuwii dhaqaalaha guriga naafada iyo dadkii daryeelka gaarka u baahnaa arday ka badan 570 oo arday ayaana subax kasta u xaadira waxbarashada dalka taasoo muujinaysa inay tahay tallaabo aad u weyn oo horumareed oo markaa aynu qaadno waxaan rabaa marka inaan marka mowduuca ka hadlayo aynaan haddana ismacaashiinin oo aynu dib u eegno tayadeena waxbarasho meesha ay marayso tayadeena waxbarasho runtii waxa lagu xisaabin karaa qaabka loo dhoofiyo waxbarashada sidii Professor Suleymaan u sheegay inay export iyo import ay yeelato innaga ma soo dhufsana tayadii waxbarashada aqoon baan u yeelanaa laakiin marka dhabta ka eegto waxaan u baahanahay ubadkeena iyo haldoorka faraha badan ee ka soo baxay noocyada kala duwan ee waxbarashada dhexe sare iyo waxbarashada heerka sareba ama tacliinta sare inaynu dhoofino oo aqoonteena aan iibina loo baahan yahay waxaan dareemaynaa marka
inaynu wax uun kaga guulaysanay qaybtii accesska iyo fidinta waxbarashada iyadoo wax badan noo dhiman yihiin laakiin maanta waxaan u baahannahay oo runtii anigana siyaasadeyda hogaamineed ee doonaya inaan waxbarashada ku hogaamiyo inta aan joogo ah inaynu kor u qaadno tayada waxbarashada waxaan ka soo bilownay in aynu dib ugu noqonno imtixaamada la gali doono fasalada 8aad iyo fasalada 12aad ee dugsiyada sare oo aan qorsheysanay in sanadkan ay ilaalinta iyo hogaaminteeda yeeshaan jaamacadaha dalku si aynu u yareyno qishka iyo in si khaldan ardaygu ku baxo aan ku dhiirigelinayno imtixaankaas inuu adkaan doonin uu noqon doono imtixaankay laga qaadi jiray mid la mid ah oo caadi ah kii ay soo mareen ardayda ka horeysay laakiin ilaalinta oo kaliya ay isbedeli doonto waxaan rajaynaynaa ubadku inay dadaalkooda waxbarasho ay hadda xoog sii saaraan waqtiga kooban ee u hadhay bisha ku dhow inay dadaalkooda saaraan oo ina habeenkiina soo jeedaan intay awoodi karayaan waxaan doonaynaa sidoo oo kale inaanu xoogga saarno kor u qaadida tababarka macallimiinta oo tayada macallinka ee qiimaha leh markuu noo soo baxo waxaan rajaynaynaa in macallinkaasi qiimo badan loo yeelan doono waxaan maanta ku faanaynaa in aanu ka sokow kuuliyadaha waxbarashada dalka ku yaalla annagoo aanu samaynay kuuliyadda waxbarashada macallimiinta ama tababarka macallimiinta oo ku taalla magaalada Hargeysa aan ku xareynay 120 hablood oo dhammaan inta dhigata kuuliyadaasi ay yihiin hablo oo runtii wax lagu faana ah annagoo aragnay qiimaha habluhu ay u leeyihiin waxbarashada hoose iyo barbaarinta ubadka laga soo bilaabo keejiyada dugsiyada hoose dhexe ilaa ay sare soo gaarayaan waxaa ilaahay mahadiya 120 hablood aynu xareynay in aanu maamulkiina bedelnay oo dhammaan ka dhignay gabdho madaxa u sareeya ilaa qaybta u hooseysa dhammaan waxay noqdeen gabdho hablo wax bartay oo qarankana u soo jooga ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa bisha June markay imika dhamaatana inaan qaadan doono 200 hablood oo cusub annagoo qorshaha iyagu yahay annagoo raacayna mashruuca GPE-ga inaanu gaarsiin doono sida ugu dhaxsiixa badan muddo 3 sanadooda inaanu 500 oo hablood ka soo saarno waxbarashada jaamacadeed oo hablahaasi ay dhammaan ka soo baxaan waxaan doonaynaa inaan kor u qaadno nidaamka kormeerka oo runtii aan jecelnahay inaan xoog saarno hadda waxaan dalbanay gaadiid badan baan dalbanay gaadiidka waxaan u dalbanay inaanu u fududeyno qaybta kormeerku inay si joogta u dul joogaan qorshaha waxbarashada dejinay dhammaan iskuulada iyo jaamacadaha ay dul joogaan sidoo oo kale inaanu wax weyn dul joogsano wax ka bedelka manhajka waxbarashada sidaad ogtihiin walaalayaal manhajka waxbarashada ee noo qoranay waa kii dawladii militariga ahayd ee Soomaaliya ay dejisay kaasi oo aan waxba laga bedelin ilaa waqtiga maanta la joogo علوم فربضن أيان هنتي كقدمان وحبرشدينا وحيالهاس innovation كاه وكان البروفيسور سليمان ووحق له مذيع إلى الشيء وحكم ذا وحبرشدي إنه كمجران لغة عالمية جارهان لغة إنجليز كيوحي صور راعة تاسو أباه إندبلو إيجو تاسو روحي كلفتي إن أبد كيلو وحبرشدود أي أنو فكري وينه أو إنه صور دوفصلنا مركب ودمدا شاركة جارهان سدا wadamada Afrikada bari ay noo yimaadaan aniga waqtigeyga waxaan rajaynayaa inaan xoog saari doono inaan aad u xoojiyo tababarka luqadda Ingiriisiga oo aan jecelnahay sanadkan inaan ku soo rogno xataa jaamacadaha fresh course inay qaataan oo aanay class toos loo bilaabin waxbarashada ilaa ardaygu uu soo galo hal sano oo waxbarasho ah oo dib loogu celiyo secondary-ga qayb kamid ah iyo afarta class ee luqadda Ingiriisiga lagu barto in mataqaana dib loogu celiyo sidoo oo kale ma hayno luqadii waxbarashada ee labaad ee ahayd technology-ga ma hayno ICT-gu maanta horumarku gaaray sida wasiirka uu tilmaamay isgaarsiintu waan arkaynaa maanta manhajka waxbarashada noogu jiro asaasiga ah jaamacadaha marka la gaaro lagu bartaa qayb kamid ah waxaan u baahanahay inaan maadada technology-ga aynu asalka u dhigno oo waxbarasho dhameystiran oo maadadaas aan ku soo darno iskuulada hoose dhexe sare si ay ubadku ugu soo barbaaraan technology-ga casriga ee la socdo
sidoo oo kale waxaan doonaynaa qorshahayga ku jirta in aynu xoogga saarno waxbarashada dadnimo iyo diineed iyo dhaqan ee ummaddeenu ay leedahay islaamnimada ugu horeyso qur-aankuna ugu horeeyo inaynu ku darno dhammaan waxbarashada kala duwan iyo leefaladeeda kala duwanba aan ku soo darno waxaan doonayaa hal qodob oo ah wixii inoo qabsoomay inaan haddana review ku yarsameeyo waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi oon odhan karo intii uu joogay laga soo bilaabo 2017 ilaa iyo maantoon marin 2024 bal xukuumadda uu dhisay wax u qabsoomay inaynu tirino madaxweynuhu wuxuu inoo yimiday iyadiyo waxbarashada dalka ardaydu ay marayaan 267,448 arday maantana waxaynu maraynaa iskuulada hoose dhexe markaan tirino 406,360 arday macnaheeduna waxa weeyaan boqolkiiba 250 ayaa kordhay ardaydii waxbarashada tirada ardayda dugsiyada sare wuxuu ugu yimid madaxweynuhu iyagoo ah 59,512 maantana waxay marayaan 8,705 bay marayaan marka loo eego 23 way jeeriska laakiin cabirka saxda ah waa 163 weeyaan waxaana kordhay boqolkiiba 36 ayaa kordhay sidoo kale dugsiyada dhismahoodu wuxuu ugu yimiday iskuulada dhisan oo inoo ah 1,040 iskuul maantana waxay noo dhisan 2,554 oo u dhiganta inay korodhay boqolkiiba 135 ayaa ay kor u kacay sidoo oo kale tirada macallimiinta tababarnay waxay ahaayeen 2017 waxay ahaayeen in ka yar wax la yiraahdo 5,345 macallin maantana waxay marayaan 9,087 taasoo muujinaysa in isbed 14,430 taasoo muujinaysa in boqolkiiba 170 ay korodhay sidoo oo kale waxaanu qaybinay buugaagta waxbarashada ee la qaybiyay waxay ahayd 1,524 buug baanu qaybinay oo manhajka waxbarashada dalka ah waxa ugu cajiibsan miisaaniyadda qaranka ee madaxweynuhu ugu yimid waxay ahayd 109 bilyan 713,276 shilin Somaliland bay ahayd lacagtaasi maanta waxay maraysaa 211 bilyan taasoo muujinaysa in miisaaniyadda waxbarashada qaranku ay boqolkiiba 100.8 ay kordhay markiiba taasoo muujinaysa ihtimaamka uu siinayo madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxaan ku soo noqonayaa mashruuca GRS-ka iyo riboodadii aan diyaarinay ka hor dhici maayo waxaan rajaynayaa in donoriska iyo ciddii naga kaalmaysay ay aad iyo aad ugu farxi doonaan warbixinta quruxda san ee ka soo bixi doonta shaqadii wasaaradda waxbarashada loo igmaday ee qabatay hantidii ay nageliyeen iyo wixii ka soo baxay taasina waxaan u daynayaa madaxa waaxda balaaninka mudane caateeye iyo Mr Daniel oo mar dhow soo bandhigi doona waxqabadkii GRES-ka soo bandhigi doona waxaan kaloo halkan kaga faraxsanahay inaan runtii ku guuleysano muddo 2 sano wasaaraddu ay ku dagaalamaysay inay ku guuleysato mashruuca GBE-ga Global Partnership for Education oo runtii mashruuc aad iyo aad u ballaaran ah 27 milyan oo dollar layna siiyey kaasoo la oran karayo waxa laga doonayaa in wax qabanno markaan dhab ka hadalno ma aha hanti lagu filan waa wax aan u baahnayn in la siiyey laakiin hantidii dalku u baahnaa aynu ku horumarinayn wax ma aha runtii laakiin waan soo dhaweynaynaa inta hogaaminteedu ay joogto waxaan ballan qaadayaa in sida qorshaha SB-gu inoo sheegayo iyo sida wasaaraddu u qorshaysatay ay arrinkaas u dhici doono oo wax cabasho iyo ceebaalka ima doonin dalka qaybintiisana si cadaalad ah lagu qaybin doono waxaan ballan qaadayaa goobaha laga shakisan yahay inuusan gaari karin
oo su-aashu ilaa shalay ugu badnayd oy ka mid yihiin gobollada maanta loo yaqaano sool iyo sanaag inay si toosa u gaari doonto waxqabadka iyagaasi annagoonan eex iyo gelin doonin kaweecasho si alla sida ugu suurtaga badan ay ku heli karaan xaqoodana aan ku siin doono haddii la yidhaahdo. ugu dambayn waxaan ku faraxsanahay inaan ku guulaysanay ka wasaarad ahaan in aanu helno licenska inaanu qaadno imtixaanka IGCSE-ga aan qaadno ama dugsiyada sare laga qaado nooca loo yaqaano A-levelka oo runtii iskuulka waxbarashada ee sheekh ay noo maamusho hay'adda Faro uu ku guulaystay inaanu imtixaanka qaadno imtixaanka loo yaqaano Adexcel International Examination kaasoo maanta ay u joogaan 435 arday oo ka kala yimiday wadamada geeska Afrika ay ka mid tahay Somaliland, Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya maanta ay ku xariisan yihiin iskuulka sheekh kaasoo rajeynayno in imtixaanka markay baasaan ay waxbarashada adduunyada wax badan ay ka heli doonaan. waxaan u mahadnaqayaa markastaba Ilaahay waxaan kaloo u mahadnaqayaa xukuumadda Somaliland oo runtii ku dadaashay in waxbarashadeenu ay levelkaas soo gaadho. waxaan u mahadnaqayaa hay'adaha adduunyada ee kaalmeeya Somaliland oon oran karno si fiican oo muuqata bay noogala qayb qaateen inaanu lugaha ku istaagno. waxaan kaloo u mahadnaqayaa shaqaalaha qiimaha badan ee wasaaradda waxbarashada oo marna la iloobi karin oo kartidooda iyo aqoontooda iyo garashadooda ku soo saaray midhaha maanta aan ku faanayno. waxaana idin leenahay waad mahadsantihiin, ilaahay baan idinka abaalmarin doona. waxaan u mahadnaqayaa shacbiyada Somaliland ee u dareeray nidaamkii waxbarashada ee ardayda ka badan ku dhow nus milyan kor u dhaaftay ay guryahooda ka soo dareeraan ay waxbarashada doontaan kuwaasoo runtii aad oran karto mar hadday fahmeen waxbarashadii u dhaqaaqay dariiqii horumarka ayaan aad ugu mahadnaqayaa. waxaan u mahadnaqayaa ciidamada qaranka Somaliland ee lagu nastay ee suurtageliyay amniga maanta aynu ku joogno. haddaanu jiri lahayna aynaan waxbarasho baa tiriye wax kale aynaan qabsan karnayn. waxaan u mahadnaqayaa hay-adaha islaamiga ah oo runtii iyo carabta oo wax weyn ka qabtay waxbarashada oo runtii mudan doorkoodana inaynu xusno u baahan. aad baan ugu mahadnaqayaa shirweynaha waxaan ilaahay ka rajeynayaa kii guulaysta inuu noqdo. waxaan nahay dad abaalka fuliya abaalkaadna gashateen hay'adaha adduunyada abaalkaa waa ka soo bixi doonaa mar dhow. ilaahay waxaan rajeynayaa waxbarashadeena soo baxdo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.